وفدي بلارن وهجامني بقر عثمان أو محمود بور مدوي يسديرن لوجو سودوي دجمدني جردج سودوين توفي كانوا كغيب قادنا يكون كمد الشعب كدجمد جردج ما ممكن دجمد سيجرد عقاش ويلك وحكرت كي هالدور كدجمد سيجرد يبشد قيبه هذا كلا دوين سودوين توفي كبقر كواحد من اللوكال هارين أي مركو سوق جري دجمدني جردج وحلو قلبي جيت كان بدأ يكون عن كتاي دجمد سيجردج halkaasoo cuqaashi waayeelkii waxgaradkii iyo haldoorkii iyo maamulka degmada Garadag iyo boqoradii ka soo qayb galay hadallo kooban ka soo jeediyeen isla markaana dadweynaha ku dhaqan degmadaasi Garadag uga mahad celiyeen soo dhaweynta ballaaran ee uu sameeyeen boqorkii waftigiisa waxaan halkan maanta ku soo dhaweynaynaa boqor Ismaan Aw Maxamuud Burmadow oo runtii aan ku soo dhaweynayno boqorkii degmada Garadag oo aan inta sugaynay boqor ku soo dhawow degmada Garadag anigoo afkii ku hadlaya maamulka degmada Garadag boqorada saaka dadka waxay u taagnaa baadka insaaga jacaylka ay ku qabaan ayay halkan u taagnaa boqor mar labaad iyo mar saddexaad ay ku arkaan bay dadka doonayeen maanta adigoo hor fadhiyo boqor ku soo dhawow saaka waa soconaynaa wayna ordaynay boqorku ka maamulaan كديجان أنا واحد قريبة بقول أولي وحلا بقول والله ما صدقها أنا ما يكيد بقول جرب بقول كسر دوّل بقول جرب كسر دوّل وحنا بقول كسر دوّل تذكرنا ودعاء والله بتشعلي أشعل خلنا ومبدل دعاء يوانا بقول كيس كافي بقول عثمان ومحمود برمجان وعلنا بقول كسر دوّل dalkaagiiyo degmada adiyo gobolkaaga daltay ku soo dhawaaleena boqor iyo waftiga uu hogaaminayo salaadiintu ka mid tahay waxaan ku soo dhaweynaynaa iyadoo gobol sanaag miisaankii lagu soo gobolka Soomaaliland miisaankii lagu soo dhaweeyay aanu arkaynay waxaan ku soo dhaweynaynaa goolihii gobolka sanaag oo ah degmada Garadag waxa soo dhaweyseen oo bacadka u taagantihiin إلهي شرعي قربوين السوقيني بقر كيني بقر عثمان حاتم محمود بقر وقشور وينينا مرة بعد يا مصد حاطة هنا ذر وقشور وينينا هنا قول المادر بينو نحلو المادر تيادتي أنا وين حتى السادة يقوين حتى وحوتي مادر وين وقنا هو بقرك بريق أفريقيا بقرك سومالان معه بقرك جيس أفريقيا ما هو بقرك بريق أفريقيا ayaynu halka u taagnay ilaashay oo ay ku soo dhaweeyeen waxa weenahay boqor Ismaan Aw Maxamuud boqorka bariga Afrika ku soo dhaweeyay degmada Garadag waa ku soo dhaweeynaa adiga iyo waqtigaada socotaba waqtigaada hogaaminaysaba waa ku soo dhaweeynaa boqor si kaliya laaba ayaanu ku soo dhaweeynaa boqor soo dhaweey dalkaagii Soomaaliland ku soo dhaweey gobolkii Sanaag ku soo dhaweey degmadii Koonaha ee Garadag ku soo dhaweey waxa farxad noo ah inaad waliba caafimaad qaba inaad maanta soo gaadho deegaankaagii farxadaadii aad iyo ballaaran bay noo tahay waxaan ku soo dhaweynaynaa boqorka boqor Ismaan Burmadow waxaana boqor soo dhaweey gacmo furan ku soo dhaweey gacmo furan ku soo dhaweey si aan hagan lahayn soo dhaweey يا سلام sida wanaagsan ee sharafta leh ee aad noo soo dhaweyseen annaga iyo boqor Ismaan Aw Maxamuud oo runtii safar dheer soo galay ilaa iyo Hargeysa meelo badan lagu soo dhaweeyay deegaankeena sidoo kale lagu soo dhaweeyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin hadday tahay uqaasha iyo ciidamada hooyooyinka haweeneena quruxda badan iyo dhalinyaradeena hablaheena
waxqabadka oo dhan xildhibaanada madaxda qaranka iyo madaxda gobolkaba aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa. waxaan uga mahadnaqayaa soo dhaweynta magaalada aynu joognaa waa magaaladii Garadag. waxaynu joognaa dadkii caanka ahaa magaalada taliyageedkani waa xubinta ama golaha looga taliyo beerweynta habar jeclo dhammaanteed meel kastay joogto. go-aanan dadka kan lagu qaadana habar jeclo kama socdo dhexdeeda. waa magaaladii talada, waa magaaladii halganka, waa magaaladii ugu xamaasada iyo haddii aan laga leeyahay ficilka. waxaa lagu yaqaanaa geedka ka nabadda lagu xidhaa ma furanto. markaynu dagaalamo ee Soomaali isdishay ee aynu halgankii aysanan ku jirin, magaaladani waa magaaladii lagu dhigay gobosha, waa magaaladii beelaha warsangeli iyo dhulbahante iyo habar jeclo ay nabadda ku xidheen. waa magaaladii xubinta u ahayd talada, waa magaaladii fardaha iyo buruxda, waa magaaladii xoolaha lagu yaqaanay, waa magaalo lagu yaqaano horumar iyo dab iyo haddii aan laga leeyahay wax wada qabsi ku dhisan. waa magaalo aan la mid ahayn magaalooyinka kale, waa magaalo isku tashata, waa magaalada jaamacaddii gacanteeda ku dhisatay. abaartaa waxayna ka naabeen waxay qabto degdega oo waasaca oo baraka leh oo dad waxqaadaya diilintoona lahayn oo kadabaaya dalila ay ka barinay. waa Madar Sare, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Garadag.